madaxweynaheeno soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow shacabku ku salaamaya satirkay ha ku ilaaliye shacabku ku salaamaya satirkay ha ku ilaaliye saadaal qurxooniyo sinaan iyo cadaalad baan saadaal qurxooniyo sinaan iyo cadaalad baan kama wada sugaynaaye saldhigaagu waa sharafey sahankaagu waa guuley socdaalkaagu waa nabade safarkaagu waa qayrey iyo samaad barwaaqaade soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow soo dhawow soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow umataan sannada badan siliciyo dhib soo marayey umataan sannada badan siliciyo dhib soo marayey adigay ku sugayaano ku sacabatumayaane adigay ku sugayaano ku sacabatumayaane soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow soo dhawow soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow soo dhawow soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow soo dhawow soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow umataan sannada badan siliciyo dhib soo marayey umataan sannada badan siliciyo dhib soo marayey adigay ku sugayaano ku sacabatumayaane adigay ku sugayaano ku sacabatumayaane soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow soo dhawow soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow soo dhawow soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow soo dhawow soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow xubnaha golaha wasiirada ka jooga xubnaha baarlamaanka taliyaha ciidanka asluubta maamulka gobolka karkaar maamulka degmada shacabweynaha reer waaciye odayaasha haweenka dhallinyarada iyo akhyaarta halka joogta dhammaantood iyo ciidamada qalabka sida iyo saxaafadda intiinaba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa maamulka degmada sida diiran ay noogu soo dhoweeyeen magaalada waaciye iyadoo maalin ah oo maalin jimco ah oo runtii xilligii salaadun ay soo dhowdahay aad iyo aad si gaaraan uga mahadcelinayaa waxaan ilaahay subxaana wa tacaala ka rajaynaynaa maanta oo jimco ah culayska iyo cadceedda iyo abaarta deegaanada ka jirta guud ahaan iyo gaar ahaan waaciye nawaaxigeed ilaahay inuu ka dulqaado waxaan ilaahay ka rajaynaynaa madar khayr qaba oo ummaddan isagaa deeqi kara ilaahay inuu raxmaddiisa u soo dedejiyo runtii waxaan aad ugu faraxsanahay sida wanaagsan dadka reer puntland ay ugu heelan yihiin inay nabaddooda ka shaqeeyaan inay horumarkooda ka shaqeeyaan inay waddada horumarka ay cagta saaraan waxaad ogtihiin sida wasiirku uu sheegay dawladdan ahmiyaddeeda koowaad iyo labaad iyo saddexaad waa nabadgelyada
dhisidda ciidanka qaabaynta iyo dib u habaynta dhaqaalaha iyo adeegga bulshada waxaan rajaynayaa haddii ilaahay idmo haddii gacan buuxda aan iga helno in nolosha dadkeenna tabaalaysan ay wax iska beddeli doonaan shaqooyinkii ay soo noqon doonaan xorriyaddii ganacsiga isu socodku ay soo noqon doonto balaayada iyo ummaddanna soo dhex degtay ee ummadda laynaysa ee dhibka ku haysa ilaahay uu ka dulqaado si raxmadda ay noogu timaaddo waxaan u malaynayaa abaarta badan waxaa noogu wacan nimankaa nabaddiidka ah ee dhibaatada dalka ku wada oo dadkii wax aldoorka hadilaaya iyo dadkii oo iska fiirsanaya dunuubta u weynay dadkan galeen markaan waxa weeye inay dadka dhiigga muslimka daadinaayo inayn wax ka qabanayn khaasatan magaalada boosaaso waxaan farriin uga dirayaa oo dad badan oo halka joogana ay noloshooda ay ku xidhan tahay ama degaankooda labaad u yahay in wixii lagu jiray aan waxaan loo adkaysan kara ahayn in maalin walba qof haldoora horteenna intii lagu dilo laga aaminsan yahay cadaab ka weyn oo soo degi lahaa ma jirto dhiigga muslimku waa qaali wax ilaahay uu karaameeyey dunidan waxaa ugu weyn bini aadamka weliba muslimka oo caddeecay marka waxaan rajaynayaa inaan u digtoonaanno oo u tog hayno sidii nabaddeenna aan u sugu lahayn cadowga isaga dulqaadi lahayn raxmadda ilaahayna aan markaas u fili lahayn haddii ilaahayda ka dhigo waxaa aad iyo aad runtii nasiib darro ah in dadkeennii uu ku dhacay rucbi iyo cabsi iyo iyagii oo dhexdooda shaki laga kala abuuray dadkan waa dad qura waa ehel waa dad isku mid ah ninkii ka baxoo bannaan istaagoo bele kale u galay nagama mid aha ehelna nalama aha lamanana dhalan waa cadowga in layska qabto uu baahan yahay waxaan u sheegayaa dhammaan wixii dadkan ka fallaagooba inaysan u arag wiilashoodii ee u arkaan cadow noloshooda ku soo jeeda oo in layska qabto u baahan waxaan insha allah rajaynayaa arrintaas inay dadka odayaasha iyo waxgaradka ay u istaagaan oo hormuud ka noqdaan haddaan arrintaa loo soo bambixin way adkaanaysaa in wax laga qabto aan runtii taariikhduna ay qoraysay dadkaana lagu yaqaanay dad in la gumaysto ogol ma ahayn weligoodna lama qabsan waxaysan raalli ka ahaynna ma aqbalin haddana inay aqbalaan sax ma aha waxaan dareemayaa waxyaabaha habaca keenay waxa weeye kalsoonidii dawladda ay ku qabeen hoos u dhacday oo ay arkeen inay dawladdu u diyaarsanayn ciidamada halka jooga iyo aniga iyo dhammaanteen waxaan diyaar u nahay inaan cadowga aynaga qabanno idinkana gacan baan iga rabnaa haddaan nabad la helin wax kale oo laga sheekayn karaa ma jiro horumar kale iyo wax kale oo laga hadli karaa ma jiro nabadgelyada aan isugu tagno ilaahay iidankiis raxmaddiisana waan helaynaa aniguna waan ku faraxsanahay maanta halkaa in la joogo sida guddoomiyuhu sheegay anigu reer waaciye iyo reer boosaasaan ahay qardho waxay ii daba socota anuu garan maayo laakiin waxaan u malaynayaa waa isii soo sagootisaan u malaynayaayo sagootiskana waa isku leennahay marka insha allah waxaan rajaynayaa magaaladan nabaddii lagu yaqaanay iyo hormuudkay u ahaayeen nolosha in dib loo soo celiyo ganacsigii waa laga soo tegey dhaqaalihii waa laga soo tegey haddee guryihii ayaa intaan dambe ragga halka isku soo ururay guryahoodii intay kiraysteen bays halka ku biilan jireen hadde waa ogtihiin boosaaso waa haawanaysaa bini aadamka hadduu nolol helinna haddee waxa weeye mawtur sariir isagoo nool buu iska dhimanaya haddii kale gaajadu waa ka cadowsan tahay cudurrada ilaahayna markuu ugu manna sheeganaya qoraysh alladii ancamahum min juucin wa aamanahum min khawf juucuu hormariyey haddaan shaqo jirin oo nolol jirin waxay la tahay waa cadaab meeshii ugu dambaysay waxaan rajaynayaa in magaalada boosaaso oo ah xarunta dhaqaalaha ee puntland amad quudisa dekeddii iyo ganacsigii dadka ilaa iyo gaalkacyo ku nool noloshooda ay ku xirnayd ilaa saaxo runtii arrintaas gabaabsi iyo halis bay ku jirtaa dadka mudan oo maanta in lagala hadlana waa dadka halka jooga iyo inta la mid ah marka arrintaas waxaa la rabaa in loo guntado waxaan ugu baaqayaa dadka
wiilashooda dadka qaybtiisa mooda ee guryaha ay ku haysta in ay laamaha amniga u soo sheegaan in tallaabo laga qaado inaan qurun la dugsan baan inagula dardaarmaya haddii ilaahaydmo ballanteenna waxa weeye inaan amniga sugno cadowga iska qabanno dhaqaalaha iyo horumar ka shaqayno noloshii quruxda badneed ee dadkaan lahayeen ay soo noqoto in layscafiyo niyadda laysku furo ilaahay laysku xiro raxmadda ilaahayna ilaahay idankiis waana siinayaa waana rajaynaynaa ilaahay idankiis wixii aan ka barnay dhowaan inaan ka helno ilaahay waxaan subxaana wa tacaala ka baryaynaa maanta oo jimca oo bacadkaas aan taagannahay ilaahow adaa ummaddaan deeqee raxmaddooda u soo dedeji wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu